muqdisho magaalo taariikhi ah oo ah caasimadda dalkeena hooyo ee Soomaaliya. Muuqaalkan wuxuu bilow u yahay silsilado muuqaala oo aan idinkaga diyaarinay magaalooyinka ugu caansan Soomaalida ee taariikhiga ah. Tanina waa Muqdisho, balse inta aanan gudagelin ka hadalka muqbilanta Muqdisho, taariikhda magaceeda halka uu ka yimid, isbeddelka bilicda caasimadda ee hadda iyo waxay caan ku yihiin dhalinyarada magaaladan. fadlan like share muuqaalkan si quruxda caasimadda iyo taariikhdeedaba qof walba uu daawado. una share garay asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale. soo noqor degmada ama xaafadda aad ka degan tahay amaba aad ku noolaan jirtay xilli ka mid ah waqtigaaga. ku soo biir page-keena oo like iyo follow badhe. haddii aad YouTube-keena naga daawanaysana si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah, subscribe sar channel-keena oo gambaleelka furo si aysan kuu dhaafin muuqaalada xiisaha leh isla waqtiga aan halkan soo gelino. mahadsanid. Muqdisho waa caasimadda dalka Soomaaliya, waxay ku taallaa galbeedka badweynta Hindiya. waa magaalo qurux badan oo indhaha bini'aadamka soo jiidata oo ay 3 jiho kaga wareegsan tahay badweynta Hindiya. waxaa magaalada Muqdisho dhidibada loo aasay waqti aad u fog oo ay taariikhyahanada isku khilaafeen in magaaladaasi la aasaasay qarnigii 2 ama kii 3 ee taariikhda miilaadiga. qarniyadii dhexe magaalada Muqdisho waxay ahayd magaalo ilbaxnimo iyo xadaarad lagu sheegay sida ay soo wariyeen dhulmareennadii booqday xilli hore Muqdisho. sida laga dheehan karo kutubta taariikhda, Muqdisho waxa ay noqotay magaalo bulshooyin kala duwan martigelisa, saldhigna u noqotay ganacsiga gobolka Geeska Afrika. taariikh hore xitaa Muqdisho waxay ahayd xarun ganacsi iyo marin kala qaybiya Hindiya iyo Yurub inta aan la qodin kanaalka Suez, jasiiradda Carabta iyo xeebta Afrikada Bari. waxaa kaloo ay taariikhyahanadu isku khilaafeen magaca Muqdisho iyo asal ahaan meesha uu ka soo jeedo. waxaa la sheegay in magaalada markii hore la oran jiray Xamar iyo magacyo kale. taariikhyahanadu waxay caddeeyeen in magaca Xamar uu ahaa midkii horreeyey. magacaabidda magaalada Muqdisho waxaa la sheegaa in magacaasi asal ahaan uu ka yimid magacad shaax oo loola jeedo kursiga boqorka ama micno kale oo meesha ku jira, waana meesha ugu wanaagsan ee boqorku uu fadhiisto amaba uu xarun ka dhigto. muuqaalkan kuma soo koobi karno inaan ku falanqeyno magaca Muqdisho iyo halka uu ka yimid. muuqaal gaar ayaan ka soo samayn doonaa guud ahaan taariikhda magaalada iyo magaceeda halka uu ka yimid. Muqdisho waxa ay soo martay waqtiyii isticmaar iyo gumaysi Talyaaniga ayna sidoo kale saldhig u noqotay. Muqdisho way ka baxday oo ka xorooday gumaysigii Talyaaniga iyo isticmaarkii. waxaa isku beddelay madax kala duwan oo dalka Soomaaliya madaxweyne ka noqday, saldhigna ka dhigtay magaaladan cajiibka ah ee dhammaystiranta lagu tilmaami karo. markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka, Muqdisho waxay gashay xaalado ay adag tahay in dib loo xasuusto, kuwaasoo isugu jiray burbur, dhimasho iyo wax walba oo bini'aadamku dhibsado. xasuusta burburkii dalka, caasimaddu waa halka ugu badan ay duntay amaba qaabishay burbur lixaad leh oo soo gaaray guud ahaan magaalada. 10 sano iyo holciisa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waana sababta loogu yeero dulqaad badan. Muqdisho waa ay soo kabsatay, waxaana jirta hadda dowlad ka talisa. waxaa dhisan fooqaq caadda sare taaban karaa, waddooyin waaweyn oo bilic sare leh, hoteelo lala cajabo, xeebo quruxdooda loo soo dalxiis tago ay soo galeetigu la yaabeen. muqbilantan way ka mug weyn tahay caasimad keliya. Muqdisho waa hooyada ummadda Soomaaliyeed, hadda waa mid bilicsan oo indhaha u roon. Muqdisho waa tiirka shanta Soomaali, waa astaanta qof kasta oo sheegta magaca muwaadin Soomaaliyeed, waa xarunta iyo madaxtooyada looga arrimiyo Soomaaliya oo dhan. magaaladan waxaa aas-aas u ah dhalinyarada. marka si qoto dheer looga hadlo, waa kuwo qalbi furan oo ka maran waxa loo yaqaano qabyaaladda. aas-aaskooduna waa isjeceyl iyo soo dhoweynta Soomaali kasta oo imaado hoygooda. ileen Muqdisho lagama xigo qof kasta oo afka Soomaaliga ku hadle. dugsiyada quraanka, iskuullada iyo jaamacadaha ku yaalla caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ma ahan kuwo la tirin karo. taasi waxay caddaynaysaa sida jiilka ay dhaxsato caasimadda ay u yihiin kuwo aqoon leh oo waxbarta, yarkooda iyo weynkooda. 90% ayaana lagu tilmaami karaa dadka waxbarta. sidoo kale masaajidda ugu waaweyn dalka ayaa ku yaalla halkan. waxaa laga xusi karaa masjidka Isbahaysiga oo salaad walba qaabili kara in ka badan 1000 qof. jihada hiwaayadda iyo waxyaabaha ay dhalinyaradu ku madadaalaan marka la eego, fanka ayaa qayb ka ah waxyaabaha qurxiya caasimadda. kubadda cagta ayaa magaalada ka ah ciyaarta loogu jecel yahay ee dhalinyaradu ay ku fogan tahay, waqti walbana ay yihiin kuwa isha ku wada haya haddii ay ahaan lahayd ciyaarteeda amaba daawashadeeda. waxaana tusaale kuugu filan in fagaarayaasha ugu badan ee laisugu yimaado
marka loo baahdo tiro ka badan 10,000 oo qofood ay tahay garoomada ciyaaraha kubadda cagta. haddaba si walba muqdisho la isugu dayo in muuqaal kooban laga soo bandhigo iyadoo la qeexayo qayb ka mid ah taariikhdeeda iyo isbeddelka muuqda ee ka jira muqdisho waxay u baahnaan doontaa saacado badan si aan u saldhigno muuqaal dhammaystiran, balse intan ayaan ku soo koobaynaa soo bandhigidda waxyaabaha aynu ka soo calaamadaynay. adiga ahaan haddii aad muqdisho ku dhalatay qaybta kommentiga ku soo qor degmada ama xaafadda aad ku dhalatay, ama sidoo kale isku muuji kommentiga haddii aad jeceshahay oo aad rajaynayso inaad mar un timaado maalin ka mid a wakhtigaaga. dhamaadka haddii aad nala joogtayna oo aad nagu taageersan tahay inaan ka soo hadalno xaqiiqooyinka iyo dib u kabashada ka jira magaalooyinka taariikhiga ah ee Soomaalida, ha hilmaamin inaad like saarto sababtoo ah taasi ayaa dhiirigelin inoo ah. una share garay asxaabtaada. haddii aad page-ka naga daawanaysana follow dheh, haddii aad naga daawanayso YouTube-kana subscribe saar oo gambaleelka furo. waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga.